waa dhaqankoodii waa hiddahoodii waa maalintii 8 maars ee hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan noo masaamixi waayay daruufo jira awgood daadadka iyo sida COVID-19 ayaa la isugu imaan waayay insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambe ninkii Ilaahay gaarsiiyo xalfad ballaaran oo meel walba looga imaaday inaan samayn doono insha Allah waxaad nagu bilowdaa magacaaga iyo muhiimadda ay leedahay xalfadan maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ورقية نور ديرية وان سلام يا دمان ومدى صوماليين ملك استوجوغان صقيري كبير مهمة دمان حلفدان ما أورتو هذا الوالد لما يمرها الماموين كاكاد لي ما شاء الله إيغن ومهد علينا ويليش كامير ما ندن ومهد علينا مهمة حلفدان ليدا هاي وحان اسكو حسوسنينا دقن كيني iyo maxay background-keena wadankeena wixii uu ahaan jiray maadaama wadan qurbe imaadnay ciyaal yar yar oo waxba dhaqanka ka ogeynaan wadana inay dhaqankeena u dhumin oo ay haystaan diintii dhaqankii inaan xasuusino magacayga waa Cabdi Axmed Maxamed aad iyo aad baan idin salaamay dhamaantiin waqtigiina aad noo soo hurteen waa idin kaga mahad celinaynaa muhiimadda ay noo leedahay waxa weeye waa xusuus waa dhaqankeeni waa hidaheeni waa sharafteeni waa abaabiski iyo akhlaaqdi awlaadeeni iyo dadkeena Soomaaliyeed in aan xusuusino maadaama aan wadankeeni wadanan ahayn aan joogno inaan xusuusino in ay hooyooyin kale yihiin laf dhabartii dadka iyo dalka iyo awlaadaba ay yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed inay laf dhabartii yihiin ayaan umada xasuusinaynaa waxaan imaanay wadan qurba ah dhalinyaradii wadanka aan keenay iyo kuwa ku dhalanayaba muhiim waxa uu inayna dhaqankeena Soomaaliyeed ayna dhumin sida diinto kala sida maxay ahaydey dhaqanko kala waxyaabo badan marka dhalinyaradii in la dhiirigeliyo hooyooyinka dhiirigeliyaan oo ragga dhiirigeliyo oo garab la isa siiyo ma ogiyo waxa way dhaqanku u dhumayaa marka daas waayaan maxay ahaydey aan xalfada iskugu imaanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحيو حسين حسن حفلة قروع بدن أنساء أجاسيني وحنا قلت لقلني 8 مارس أما ومنس دي أنا قلت لقلني إن شاء الله سوى دوين تيدا ديار قروع كذا أنا قلت لقلني waxaad noo sheegtaa doorka ay ku leeyihiin dumarka Soomaaliyeed jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa meel aad u culus ay ugu jiraan bulshada waa barbaariyaasha وكبياشة Soomaali 30 sano ay burbursantahay hadii maamooyinka ahayn ma waxa ma jiraan laakiin alxamdulillah waxaan ku badbaadnay waa dumarka Soomaaliyeed ilaa hadda iyagu baa ku dhagan dhaqankii ciyaalkii wixii dhan aad iyo aad ugu mahad celinaa meel kasto joogan qurbaha day imaadeen iyo hadii dalka jiraan ba dhibaatada weyn iyagu bay ku dhacdaa kan dhimana iyagu ka dhintaa kan maxay ahaydey waxa iyagu dhibka dhan iyagu buu dusha ka saaran yahay kii korin ayaga koriya alxamdulillah wax bulshada meel adag ay ugu jiraan haweenka Soomaaliyeed dumarka bulshada hordhigoodi waa ma sha Allah haday dumar ahayn waxba ma socdaan Soomaha wixii wax dhala waa ayaga wixii wax dhaqa waa ayaga ma sha Allah tabarakallah lambar koob ay ugu jiraan dumarka Soomaaliyeed waa laf dhabarta bulshada dagaal ma galaan oo qori ma qaataan qabiil ma yaqaanaan nimankii muxuu ahaay markii la kala haaday oo qabiil iyo wax loo kala baxay wixii ilmaha la haadaa dhacay waxa qaxootiga noqday waxa rafaaday dumar Soomaaliyeed ay ahaayeen dumarka Soomaaliyeed waxa waaya ma sha Allah waa laf dhabarkii Soomaaliyeed wadankeena wuxuu burbursan yahay 30 sano 30 sano hadayna dumar aasan u taagneen wadankeena ma dhisnaadeen kuwa qurbada jooga oo qurbaha imaaday waxa dhalinyarada maxay ahaydey abaabulaya waxa dhiirigelinta siinaya waxa dhaqanka u celinaya inuusan dhaqankooda ka dhumin waa hooyo aaba kor umba wax ka soo celiya ma ogi inta badan hooyada guriga wax ka ilaaliso dhaqanka toosisa wadankeennina waxa waaya wuxuu maxay ahaydey
dibidaha dadka ka imaaday iyo waraabaha dhulka jooginta ka dhaxaysa waa iska balalahaysan lahaayeen hooyo un baa dhiirigelinaysa fariinta ugu dambaysa u dir leh dumarka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waa maxay wallahi fariinta aan u diraa awal horta alla ka cabsi aan u diraa in ilaahay aan ka baqna xaqdiga iyo xaasidnimadana waxba ma tarta taas mid muhiimada koobaad waa taas mid ku xigta inaan dhaqankeena dhumin ilmihii kuwa soo karo qurba joogta waxba dhaqanka ka aqaanin inaan aan ku dhaganaano oo barbaarino oo mid ahaana meel kasto aan joognaba bulshada weynta Soomaaliyeed rag iyo dumarba taas aan u diraa inaan mid ahaana u diraa dhammaan Soomaali meel kasto joogto oo qolqol iyo qabiil ay waxba tareynin fariinta aan u diri lahay waxay tahay inay Soomaali mid tahay inay isku guri ka soo toostay inay isku luuqad tahay inay isku dhaqan tahay in maanta qof walba oo Soomaali u dhashay ama Somaliland ha noqdo ama Puntland ha noqdo ama waxa calamada la qaybiyo nin walba meel geystay aad Soomaali inay Soomaali tahay oo qofka Soomaaliga markaad aragto wax walba oo isku qabo wuxuu hayo uu dhigayo waxaan leeyahay Soomaaliyay isku tiirsanaado dhulkeenna dal iyo dibadba waa laga weerari hayaa isku tiirsanaado Soomaali ahaan hooyooyinka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kuwa dalka jooga kuwa dibadda jooga insha Allah khayran filanayna haduu ilaahay yiraha maxay ahayd xalfad weyn oo magac leh oo dad iyo dadka uu ku qancay in la dhiga insha Allah ilmaha lagu abaabiyo xasuusi wadankeena aanay tagin oo saqiir iyo kabiir aan hal faray ahaana insha Allah rag iyo dumarba hargeysa isabawana sida baxayno ahaw waxa xalalay sawiray gaygo nabad saaqdayo sareer dadku kuladay waxay sugayeen helay buura surbaawde kan Soomaaliya waqtuna sida wayta hadan saxariir ma tiro waxa xalalay sawiray gaygo nabad saaqdayo sareeda dadku kuladay waxay sugayeen helay buura surbaawde u dheer kana Soomaaliya goobtuna silic way martaa dana saxariir ma tiro waxa xalalay sawiray gaygo nabad saaqdayo sareer dadku kuladay waxay sugayeen helay buura surbaawde kana Soomaaliya goobtuna silic way martaa dana saxariir